iga hooya qisadan gaaban ee qiimiga badan nin ayaa wuxuu lahaa waa jasiiratul arab qisadu waxay ka dhacday waana qiso dhab ah 100 sano horteed Saudi Arabia weeyaan nin baa waqti go'ah wuxuu lahaa xoolo aad iyo aad geel aad iyo aad u fara badan geel waa wada irmaan yahay waa wada ma aragtaa ilmihii baa daba socda dhulku waa cagaaran yahay cirkii waa roobkii baa socda geeliisii buu indhaha intuu sidaa u la raacay ayaa wuxuu arkay hal irmaan oo qurbici uu ma aragtaa uu nuugayo wuxuu soo xusuustay jaarkiisa oday jaarkiisa faqiir ah oo waayeel ah oo wiilal badan haysta maalina qada maalina quuta oo waxeela wuxuu qalbiga geliyay sidoo maanta u faraxsan yahay isaga inuu uga farxiyo hashi iyo qurbiceedii ayuu u geeyay albaabka u garaacay wuxuu yiri assalaamu alaykum hashan iyo qurbiceeda waa hadiyad xageega ka imaaday ee hoo wuxuu leeyahay ninka isaga ahaa mar allaaliyo markaan ku wareejiyay ee uu neefkii arkay farxadda wajigiisa soo fuushay uma malaysan kartid farxad qalbiga ka soo go'day weeyaan waaya kadib ayaa dhulkii abaar roobkii baa guray abaar baa timid ninkii xoolihii wuu qixiyay reebaadiyaha waa sidii inoo kale 100 sano horteed ahayd waa meelaha roob kale iyo qoyaanku ku sii dambeeya la aadaya meeshii buu la aaday isagoo marba meel fiirinay marba meel aadaya meel duxul la yiraahdo oo reebaadiyaha yaqaanay buuraha hoostoodii godad dhulka oo biyaha ay ku sii hareen ayaa wiilashiisii buu yiri banaanka sii jooga godkaana galaya biyaan ka soo eegayaay odagii ma soo laabanin ilaa iyo habeenkii si u qaylinayeen wiilashii way waayeen waxay yiraahdeen iska dhaadhiciyeen odagii waa dhintay xoolihii bay markii dambe ka haysteen waxay raali kama aanay ahayn waagii neefka hasha iyo qurbiceeda la siinayay aabaha uu sadaqaynay ee uu jaarka siinayay waxay dhaheen aabbo uu dhintay waxay ku tashadeen aabbo maadaama uu dhintay aanu ka soo qaadano ka soo ceshano ninka hashi say uga soo ceshanaa dib malaho awr baan siinayna laakiin hashi way dhalaysaa waa ka soo ceshanayna sidii bay yeelan way u tageen oo hashi soo celi awrkana qaado fiir maalintiin aabihina isiyeen ku soo celiya aabihina idin sheegay idin ku dacweynaya odagii waa dhintay waqti hore hashi soo celi baaliyir waxaan ku siinayna malaha ninkii wuu naxay suu dhiman kara aabihin geeridu waa xaq laakiin ninka khayrka badan qalbiga fiican ee sida wax u sadaqaynaya يعني جيريديس ما بقرصون تبا سين أمغلي وين درسكو سو أمغلي وايي حجر إلهي بإذن كداريه أورنا إذن كمرة حش إن ركتي إيه قرب عدن وإذن علينا يا لكن بشرط إنا إتستان أو ذا هلك إنكو قدام بيسي هلكو قد انتي إنا إتستان واي هلير حشي ولا عشتي ولا جي وحجر أرضيس كبحة قلت كيف حرقن توقع توقلي السعودي وراديناي دي والله بلا بالكوستي ساعة أو يبيو قتين odagii ayuu marka dambe soo qaylay taahisi ayuu maqlay odagii buu meeshwa mugdi odagii buu indhaha intuu ka soo xiray ilaa iftiinka ma qaban kare nafta wili waa ku sii jirta ayuu soo jiiday banaanku keenay dadaalka fiiri banaanku keenay odagii wuu weydiiyay wuxuu yiri 7 cisho ayaad ku jirtay dhulka hoostiisa maxaad cunaysood quudanaysay wuxuu yiri haddaan ku sheego wad yaabaysaa afarta cisho ugu horeysay horta biyaan cabeeyay buu yiri biyihii markii ay oo yani gaajada iga gooyn waayeen ayaa markii dambe waxaan dareemay gaajo xoog leh inaan dhimanayo ayaan isu qaban qaabiyay waxaan u seexday qadad ilaahay baan tala saarto arinteedii ma aragta u bandhigay dhimasho ayaan isu qaban qaabiyay markaas in yar kadib gabalka markuu mugdihi habeenkii marka la gaaray ayaa wax kulul oo caana ah afka iiga dhibqeen afkii baan kala qaaday mise caana bay ugu socdaba caana cabaaya 3 jeer ayaa la keenay ayuu leeyahay isagana caanihii afartii cisho ay ugu horeysay caanaan cabayay labadii cisho ugu dambeysay ayay caanihii iga go'een dhibkan iyo rafaadkan aad aragtid waa caana la'aantii iyo quud la'aantii quudkeeda iga go'ay ninkii markaas iska ooyay wuxuu yiri haddaan ku sheego sababta lagaaga gooyo caanihii aad quudanaysay waad yaabaysaa ilmahaagii baa yimid hashi aad caanaheeda cabaysay aad ugu sadaqaysatay ee aad harkeeda iyo hooskeeda harsanaysay ayay ilmahaagii cishteen allah qofku wuxuu harsadaa harka sadaqadiisu harsadaa ha u malaynina in wax lidan kaga sabanayo waa xaqiiqo jirto aad aragteen